tababara Guardiola ayaa ku farxay ku soo laabashada qaab wanaaga kubadda ee Grealish. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay rabitaanka Jack Grealish ee ah inuu hore u wado kubadda kulankii ee 2-0 kaga badiyeen Chelsea Arbacadii shalay. qaybtii labaad ee ciyaarta laba gool oo ay kala dhaliyeen Riyad Mahrez iyo Julian Alvarez ayaa guusha u xaqiijiyay City waxayna u soo gudbeen wareegga afaraad. Grealish wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa City isagoo abaabulay weeraradii kooxda haysata horyaalka Premier League xilli ay maqan yihiin Kevin De Bruyne iyo Phil Foden. marar badan ayaan la hadalnay isaga ujeedka koowaad waa inaad gool dhaliso. Guardiola ayaa u sheegay suxufiyiinta sidaas qatar dhab ah kuma aha afarta dambe ee kuwa naga soo horjeeda sababtoo ah isaga kaliya waa kubad dhiibe laakiin maanta body language-kiisa waa waxaan dhalin doonaa gool kadibna shoot ama pass. maanta 3 ama 4 jeer ayay ahayd markii uu sameeyay taas ayaana rabnay. maanta wax gool ama uusan dhalin balse fursadda uu helo wuu dhalin doonaa. isaga wuu soo laba kacleeyay ma ahayn mid caadi ah. Jack runtii aad ayuu u fiican yahay. ciyaaryahanka qadka dhexe ee Calvin Phillips oo rajaynaya inuu ka mid noqdo xulka England ee ka qayb galaya koobka adduunka ee Qatar ayaa ka soo laabtay qalin garabka ah. Guardiola ayaana ku riyaaqay saameyntiisa. Calvin waxa uu dheelay 40 daqiiqo oo wanaagsan ma uusan ciyaarin waqti dheer waxa uuna ku ciyaaray shakhsiyad cajiib ah ayuu yiri Guardiola. City oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka oo Arsenal kaliya ee ka sareyso ayaa Sabtida soo dhaweyn doonta kooxda Brentford. saaxiibayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida wacan ee aad ugu xiran tihiin barnaamijkeena. mar walba waxaan jeclahay inaan soo gudbiyo maqaalo kooban oo daqiiqadiisa ay yar yihiin sababtoo ah wax badan oo dheer faa'iido ma laha. runtiina waa i garab taagantiin oo mar walbana aad la socotaan barnaamijyadeena khaasatan waxaad u badan tihiin Facebook page-keena. waxaan kaloo jeclaan lahaa isagana inaad kala kicisaan alnaqaayo YouTube. mar walbana ku dadaala share-ta, like-ta, comments-ka. badanaa waxaan arkaa inaad comments badan aad ka soo dhiibino maqaalada aan soo gelino. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka comments-ka iyo like-ta iyo share-ta ayadoo loo sheegin sameeya. aad iyo aad ayaadna u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.